بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawa qodobada barnaamijkan aaridi kugu haynana waxaa ka mid ah warbaahinta Israa'iil oo saacadihii la soo dhaafay ka waramaysa warbixino ku aadan in ku dhawaad 2,000 oo dadkii maalqabeennada ah gaar ahaan milyaneerada ay iskaga baxayaan Israa'iil waxay tani ku soo aadaysaa sidoo kale iyadoo boqolkiiba 40 la sheegayo dadka Israa'iiliintu inay doonayaan inay dibadaha u baxaan gudaha Israa'iilna waxaa ka taagan khilaafyo dhanka siyaasadda iyo kuwa garsoorka iyadoo ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert oo si ba'an ugu dhaliilay Netanyahu siyaasadda Israa'iil uu ku hogaaminayo sidoo kale taliska ciidamada ayaa la sheegayaa is-eedeyn inay ka dhex bilaabatay la xiriirta howlgalka la damacsan yahay in duulaan lagu qaado maraykanka Gaza madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo si ba'an weerar ugu qaaday Israa'iil isagoo ku tilmaamay inay ka wado maraykanka Gaza gumaad xasuuq iyo weliba falalka dhinaca bini'aadantinimada ruushkana wuxuu shaaca ka qaaday in ciidankii ugu dambeeyay uu ka saaray ama uu ka jafay gobolka Kriska ee ku yaala galbeedka waddankaasi dhinaca kale madaxweynaha Ukraine ayaa sheegaya inay gacanta ku dhigeen ciidamo Shiineys ah oo ka barbar dagaalamayay kuwa ruushka dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo falaqayntii iyo wixii waraha ee degdeg ah ee soo kordha ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa maxamed maxamuud cadde oo wararkan isku soo duwayay qadka ku jira maxamed aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn madaxweynaha waddanka Turkiga Tayyip Erdogan ayaa ku sheegay dilkii 15ka gurmadka degdega u shaqeynayay oo Israa'iil ay ku khaarijisay bishii la soo dhaafay marinka Gaza inay ahayd dambi ka dhan ah bini'aadanimada iyo dambi dagaal Erdogan ayaa sidoo kale digniin ku bixiyay in qaybaha siyaasadeed ay afuufayaan buu yiri dab waxaana muuqata buu yiri waxay la wareegayaan maab cusub ama qariidad cusub oo isballaarin ah oo ku talagalkeedu yahay in aan cidna waxba ka faa'iido doonin waxa uu ku tilmaamay Netanyahu siyaasadda uu wado iyo hadafyada uu ka leeyahay howlaha uu ku sheegay ammaanka uu ka wado marinka Gaza cid walba waxa waajib inay ogaato ama fahanto inaan marnaba aqbali doonin in aan taageerno walaalaheena marinka Gaza halka Israa'iil ay si toos ah ugu tumanayso sharafta bini'aadanimada ee dadka Falastiiniyiinta marinka Gaza ku nool Erdogan ayaa hadalkan jeediyay kadib markii uu la wadaagay wasaaradda warfaafinta ee waddanka Turkiga wargeyska la yiraahdo Yedi'ood Ahronoot ayaa ku waramaya inay aad hoos ugu dhaceen dadka xoolaha haysta ee ku nool dalka Israa'iil tanna waxay tilmaamaysaa in isbedel weyn uu ku imaanayo dadkii maalgashan jiray Israa'iil xaaladuna isbedelayso sida lagu xusay warbixin dhawaan la soo saaray ugu yaraan 1,700 oo milyaneer ayaa ka tagay sanadkii la soo dhaafay 2024 Israa'iil tanna waxay muujinaysaa sida hoos ugu dhacayaan dadka lacagta haysta oo ka baxaya Israa'iil warbixinta ayaa sidoo kale ku sheegaysa in arrimahani ay keenayaan in hoos u dhac ku yimid suuqii saamiyada ee Israa'iil iyo dadkii maalgashanayay iyo ganacsatadii guud ahaan intaa waxaa dheer buu yiri shakhsiyaadka xoolaha haysta oo bilyaneerada ah ayaa 82 ahaan jiray haddana waxaa soo haray oo kaliya guriyada 76 wargeyska Maarif la yiraahdo ayaa ku waramaya in aad loo cambaaraynayo nidaamka ammaanka sida ay u maareynayaan dagaalka ka dhanka Gaza oo 3 toddobaad ka hor bilowday Ehud Olmert oo hore u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil intii u dhaxaysay 2006 ilaa 2009 ayaa ku eedeeyay Netanyahu waxa uu sameynayo marka ay timaado wax ka qabashada dhalinyarada burcadda ee Yahuudda loo yaqaan Hilltop Youth in ay muujinayso in wadamada reer galbeedkana ay cunaqabataynta soo saareen inay muujinayso in dalka uu ka abuurmayo koox burcad ah waxaa cunaqabataynta ku soo saaray kooxdaasi wadamada reer galbeedka uu Mareykanku ku jiro waxa ayna weerar ku qaadeen dadka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed ku nool Netanyahu inta uu ra'iisul wasaaraha yahay ayuu yiri ra'iisul wasaarihii hore Olmert in uu gacan siinayo xadgudubyada ay geysanayaan dhalinyaradaasi xag jirka ah kana geysanayaan daanta galbeed xukuumadana waxaad moodaa inay iska indhatirayso dambiyada ay galayaan Olmert ayaa hadalkiisan ka sii daayay
idaacadda militariga Israa'iil. dhalinyaradan ayaa dhowr goor weerar ku qaaday dabna suray guryaha dadka Falastiiniyiinta sanadkii la soo dhaafay. ninkii madaxda u ahaa ciidamada sirta gudaha ee Shinbet Ronen Bar oo Netanyahu uu rabo inuu shaqada ka eriyo ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa in ay dambiyada ay dhalinyaradan galayaan inay indhaha ka qabsanayaan, taasna ay horteedayso khatar ah in dhiig badan dhacdo. wararka caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Ukraine Zelensky ayaa sheegay in ciidamadiisa ay gacanta ku dhigeen 2 muwaadin oo u dhashay waddanka Shiinaha oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ruushka. wuxuuna intaas ku daray in caddayn loo hayo in ay ogaadaan dalalka reer galbeedka ee saaxiibka nala ah. Ukraine ayaa labadan qof ugu yeeray safaaraddii Shiinuhu ay ku lahaayeen waddanka Ukraine. Zelensky ayaa sidoo kale bartiisa bulshada ku qoray filim kooban oo laga soo duubay mid ka mid ah maxaabiista Shiinaha oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ruushka, waxaana muuqata in lagu qabtay gobolka Donetsk. dukumentiyo ayaan gacanta ku haynaa buu yiri iyo kaararkii bangiyada iyo macluumaadyo kale. dhinaca kale dowladda Ruushka ayaa sheegtay in militarigeeda ay ka eriyeen ciidankii ugu dambeeyay Ukraine gobolka Kursk, taasoo ku taala xuduudka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. halka madaxweynaha Ukraine uu ku dhawaaqay in ciidankiisu ay gacanta ku dhigeen 2 askari oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Ruushka. waddanka Koonfurta Korea ayaa sheegay in militarigiisu ay xabado ku fureen askar kadib markii askar ka tirsan Kooriyada Waqooyi ay ka soo gudbeen xuduudka u dhexeeya labada dhinac. ilaa 10 askari ayaa ku noqday Kooriyada Waqooyi kadib markii ciidamada Kooriyada Koonfureed ay digniin mikrofon lagu jeedinayay ay u jeediyeen kadibna xabado ku fureen, sida uu sheegay militariga Kooriyada Koonfureed. intaa waxaa lagu daray Kooriyada Koonfureed inay si dhow ula socoto dhaqdhaqaaqa ciidamada Kooriyada Waqooyi oo ciidamadaasi ay ka soo gudbeen goobta labada militari u dhaxaysa. waxaa la fahamsan yahay Kooriyada Waqooyi askartooda in ay hubaysnaayeen isla markaasna xirnaayeen jaakadaha la isaga difaaco xabadaha. waa tahay maxamed, waa mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. mar kale ayaan soo dhaweynaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warar ee degdega soo kordha ayaan u gudbaynaa. haya sheekh qadar haye soo dhawaada mar kale daawadayaal. wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka caawa. hagaag maxamed, aan ku bilowno. waxaa hadda la shaaciyey Iiraan iyo Mareykanka inay ku kulmi doonaan waddanka Cumaan maalinta Sabtida. meelaha qaarkood oo kala fikir duwan yahay. Trump wuxuu leeyahay wadahadallo toos ah ayaa la yeelan doonaa Iiraan, laakiin Iiraan waxay leedahay wadahadallo dadban weeye. marka horta intaan u imaanin qodobada laga hadlayo, daawadayaasha bar waxaad u sharaxdaa horta wadahadallo dadban iyo kuwa toos ah maxay yihiin macnahooda? wadahadallada tooska waxa weeye labada dhinac qolka shirarka ayay ku jiraan, waa is hor fadhiyaan, miiska shirarka ayay is hor fadhiyaan. labada dhinac waxay ka koobnaan karaan ninka mas'uulka ah iyo gacanyareyaashiisa. labada dhinacba saacado kooban ayay kulmayaan, waxaa la qaadanayaa break. waxa weeye hal qol baa la iskula jiraa, waa la is hor fadhiyaa. marka lagu leeyahay kulanku waa dalban yahay, waxa weeye waa loo kala dab qaadayaa. qolana qol halkaasay ku jirtaa, qolana halkaasay ku jirtaa. hadday rabaan isku dhisma xataa ma joogaan, laba dhisma isku soo horjeeday joogaan, ama waxay joogaan laba meelood oo kala fog. waa loo kala dab qaadayaa. dowladda dhexdhexaadinaysa oo Cumaan ayaa u kala dab qaadaysa. laakiin wararkan soo baxaya madaxweynaha Mareykanka dadkiisa hadalku uu sheegay waxa weeye wadahadal toos ah ayaan la yeelanayaa Iiraanna waxay leedahay wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi ayaa saacadihii ugu dambeysay ka hadlay arrintan, wuxuuna sheegay in arrimaha nuclearka ee Iiraan iyo dowladda Mareykanka laga yaabo inay wadahadal ka yeeshaan maalinta Sabtiga ah kuna yeeshaan dalka Cumaan haddii dowladda Mareykanka ay muujiso in ay dhab ka tahay wadahadallada. waxa uu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda waddanka Iiraan waxaa muhiim ah in labada dhinac wadahadalkaasi uu noqdo mid lagu tijaabinayo inay ka dhab tahay dowladda Mareykanka
Aragti ayaa waxa uu bayaan ku sheegay laga sii daayay telefishinka waddanka Iiraan inta kulanka kulan intuu ku lahaa la kulmayay madaxda waddanka Algeria ayaa waxaa muuqata in sabtiga soo socota dowladda Mareykanka iyo Iiraan in ay kulan dadban yeelanayaan. Mareykanka madaxweynihiisa wuxuu lahaa kulan toos kulan dadban inay yeelanayaan ayadoo aan wax shuruudo ku xirnayn, wuxuuna sharaxaad ka bixiyay in waddankiisa uu diyaar u yahay in macluumaadka isdhexyaacsan ee arrintan ku gadaaman nuclearka waddanka Iiraan sida meesha looga saaro. Iiraan ayaa waxay ku kalsoon tahay in barnaamijkeeda nuclearku yahay mid nabadeed, wax dhibana oo ma aragto in kulankan dadban oo lagu dhisayo kalsoonida inay la yeeshaan waddanka Mareykanka. Aragti ayaa wuxuu carabku adkeynayaa hadafka ugu weyn ee wadaxaajoodkan Mareykanka la geliyay inuu yahay sidii Mareykanka ay Iiraan cunaqabataynta uga qaadi lahayn. Aragti ayaa intaas wuxuu ku daray nooca wadaxaajoodyada ama ha noqdo mid dadban ama ha noqdo mid toosa, muhiimadda taas maaha, waxaa weeye muhiimadda buu leeyahay uu sharaxaad ku bixiyey sida wada hadallada ay waxtar u yeeshaan iyo sida labada dhinac ay uga go'an tahay in heshiis laga gaaro arrimahan aadka xasaasiga ah. Waxaa sidoo kale uu carabaabay nooca wada hadallada in lagu xiriirinayo arrimo fara badan, arrimahaasna go'aan looga gaari doono shirarka dadban ee labada dhinac ay yeelanayaan. dowladda Iiraanna ma aaminsana inay wadaxaajood ku galayso dhinac kalena la gelayso iyadoo dalabaadyo iyo hanjabaad iyo cadaadis la saarayo. waxaasna wax agteena ka shaqeynaya ma jiraan buu yiri. waa gartay waayahay wararka qaarkood waxay sheegayaan in Mareykanka shuruudo uu wato oo wadaxaajoodka ah, tusaale ahaan in Iiraan ay burburiso hubkeeda sidii la mid ah sidii Liibiya ay soo wareejiso. Iiraan sidoo kale 2015 heshiiskii quwadaha waaweyn la gashay markaas waxaa la gaarsiiyay nuclearkeeda 3.7%, laakiin maanta wuxuu joogaa sida ay sheegayso hay'adda IAEA 60%. suurtagal ma tahay markaa inay dib u laabato Iiraan oo ay aqbasho iyadoo og sida loogu hareereysan yahay oo ciidanka Mareykanku meel walba oo kamid ah bariga dhexe ku sugan yihiin inay aqbasho ma laga yaabaa? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican xudunna. dowladda Mareykanka waxay rabtaa iyadoo aan dagaal la gelin Iiraan inay Iiraan isdhiibto. hanjabaadda ay jeedinayso iyo waxa ay soo qoratay cid ka akhrisanaysa ma jirto. Iiraan 46 sano iyo Mareykanka ayay dhunta isugu jireen. hadda waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay. madaxweynaha waddanka Mareykanka ee madaxweynayaal hore ka horeeyay heshiiskii sida dhibka lagu gaaray madaxweynahan ayaa xilligiisa hore ka noqday. haddana hawshan uu wado khabiirada dhan waxay u dhigayaan inay arrinta uga sii darayso. hadalkan hadda uu jeedin leeyahay heshiis toos ah ayaa la gelayaa. daawadayaasha hadda waxaan u akhrinayay wasiirka arrimaha dibadda oo Algeria jooga ayaa arrintaasi ka hadlay. kulan dadban ayaan gelaynaa buu yiri, oo macnaheedu waxa weeye lays hor fariisan maayo. madaxweynaha Mareykanka marka waxa uu dadka u sheegayo iyo dadkiisa waxa uu sheegayo iyo waxa socda waxa weeye ayagay mataqaanaa u taalaa, laakiin uma muuqato Iiraaniyiintu inay wax tanaasula ka sameeyaan. midda kale waxaa kaloo la isku raacsan yahay oo khabiirada arrimaha militariga la fogoray ay qabaan kulligood, haddii Mareykanka uu ku fududaado inuu dagaal la galo waddanka Iiraan, dagaalka ma noqon doono dagaaladii uu Mareykanka hore u geli jiray. dagaaladii uu Mareykanka hore u geli jiray iyo kan waa kala duwanaanayaan. dagaalka markuu saacado socdo Mareykanka waxaa qasab noqonaysa inuu nuclear isticmaalo. hadduu nuclear isticmaalana adduunka jiha kale ayuu fuulayaa iyo jiha kale u jeesanaya. ay leeyihiin khabiirada Mareykanka ee arrimahan yaqaana, sababtoo ah Mareykanka uma adkeysan karo guuldaro. dagaalkan hadduu galana khabiirada dhan waxay isku raacsan yihiin maraakiibtiisa inay degayso, xiriyihiisa militariga ee bariga dhexe ku yaalla inay ololayaan, in xataa jasiiradda ku taala badweynta Hindiya ee Diaga Gratia la yiraahdo lafirkeeda in 5,000 kilomitir jirta in la duqeyn karo. waxa weeye arrintu sida Mareykanku ay la tahay uma fududa. midda kale
iiraaniyiinta laftirkeedu way ogsoon yihiin hadda ka hor ayay waxay sheegeen maraykanka xanuun waana gaarsiin karaan baa la yiri laakiin asaga laftirkiisa waa uu nugul yahay xanuunka ogow sidaas bay yiraahdeen hadda ka hor waxaa muuqata marka madaxweynahan maraykanka ee aan la saadaalin karaynin maraykanka taariikhdiisa marka la fiiriyo meel kasta uu dagaal u tegayo xulafo ka haysan jiray oo hadda xulafo aan gacanta ku haynin Israa'iil marka laga reebo haddii dagaalkan isku galo dagaalkan dagaal qurxoon uma muuqda ay leeyihiin ragga ugu horeeyo professor Mashamar Sachs Scott Ritter ayaa fogaanaya wuxuu leeyahay maraykanka marka xanuun badan uu dareemo dan waxay ku kalifaysaa in nuclear isticmaalo marka arrintan arrin sahlan maaha waa gartay waa yahay inkastoo maanta barnaamijkeenii wararka maanta baxay aan aad uga faalloonnay heshiis ayaa waxaa lagu dhawaaqay in uu ansixiyey heshiiskii hore u dhex maray ruushka madaxweynayaashooda sida halkan ka muuqata Mas'uud Pezeshkian iyo Vladimir Putin aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka ayaa ansixiyey heshiiskaas bal hadda muxuu ka macno yahay ma waxay noqonaysaa haddii Iiraan loo weeraro ruushka inuu dhicisan oo ka geliyo difaacan oo ka shaqal qaadanayna kii dhex maray Kuuriyada Waqooyi iyo ruushka ansixinta qaraarkan waqtiga lagu soo aadiyay ayaa horta sidiisaba xasaasi ah tan kale maraykanka iyo reer galbeedku ma jeclaysanayaan Iiraan oo cadow ahayd haddii ay hesho garab weyn oo sida ruushka oo kale ah heshiiska qodobada ku xusanaya waxaa ka mid ah inay iska kaashanayaan xagga militariga iyo xagga la dagaalanka waxyaabaha khatarta ku ah amniga maraykanka hooshu wada amniga ayaa khatar ku tahay marka anaga faahfaahin dheer ma gelayno waxaa la yiraahdaa af ingiriisi waxaa la yiraahdaa devil is in the details heshiiska waxaa ku qoran faahfaahinta halkaasay ku qoran tahay qodobada hadda lasoo koobay waxa weeye xagga militariga la iska kaashanaya amniga la iska kaashanaya 20 sano ayay soconaysaa maraykanka ma jeclaysanayo tan kale dhawaan Iiraan waxay ka iibsatay ruushka gantaalada difaaca cirka la yiraahdo S-400 horena waxay haysatay S-300 waxaa lagu sheegaa aniga maaha khabiirada reer galbeedka weeye waliba kuwa maraykanka weeye nidaamka difaaca cirka ugu fiican caalamka waa noocyadaas uu ruushku sameeyay weeye waxa weeye diyaaradaha cadowga iyagoo aan dhulka soo gaarin ayaa fogaano kala fog lagu arkaya waxaa muuqata marka maraykanka awoodiisa ugu ballaaran waa xagga cirka gaar ahaan diyaaradahan xaynta ah kala bar diyaaradihii istiraatiijiga ah ee maraykanka waxaa la geeyay jasiiradan ku taala badweynta Hindiya maraykanku wuxuu isku haleynayaa in uu weerar xagga cirka ku qaado Iiraan weerarkaas diyaaradahaas haday qaadaan waxay u baahan yihiin diyaarada si ilaaliya diyaaradahaas si ilaaliyana waxay u baahan yihiin diyaarada shidaal siiya diyaaradaha shidaalka siinayana waxay u badan tahay inay ka kacaan gobolka bariga dhexe haddii ay caawiso hawsha militariga ee maraykanku uu sameynayo ayagana qayb waxay ka noqonayaan dagaalka marka arrimahan ruushka waqti lagu soo aadiyay ayaa xanuun ku keenaya wadamada reer galbeedka tan kale Trump hawsha uu wado iyo fudeydkiisa iyo sida uu u dhaqmayo uma muuqato inuu heshiis iyo nabadeyn ka keeni karo Iiraan waxaaba u badan tahay in shirka looga kaco oo la yiraahdo maraykanka dadka shirka loo soo diray hadalka ay ku hadlayaan iyo waxa ay sheegayaan waa akhlaaq xumo horena waa loo yiri warqadiisa lagu yiri warqadu soo diray waxa la yiraahdo diblomaasiyad ma ahayn diblomaasiyad warqadu ma ahayn macnaheedu waxa weeye nin suuqa jooga qoray oo hadduu rabo isticmaalay eray afligada tan kale hanjabaad hadda Iiraan u jeediso waxay la mid tahay adigoo caayay la mid tahay taariikhda wadanka Iiraan waxa weeye wadan qadiim weeye oo wadan shiica weeye sharafta xurmada dad aad u ilaashada weeye in wax loo yeeriyana maraykanka yeeli maayaan waxayna istiyaarinayeen wixii ka dambeysay dagaalkii ay la galeen Saddam Hussein ama Iraq 1988 markii uu istaagay ilaa ay hadda ay istiyaarinayeen sababtoo adduunka oo dhan baa ka soo horjeeday Soomaalida xataa ka soo horjeeday waagaas oo Iraq la jirtay marka hadda nimanka muddada dheer isdiyaarinayay oo teknolojiyooyinka ay isticmaalayaan dagaalku isticmaalayaan sida droneska iyo gantaalada guuxooda ka dheereeya iyo nidaamka gantaalada ay samaysanayaan waxaa lagu sheegay aniga maaha waxa dhaxaya saas khabiirada yaqaana
teknolojiyada militariga ayaa waxay ku sheegayaan inay tahay teknolojiyada qarniga 21aad dadka safka hore ugu casirsan ay ku jiraan waxaana taa marqaati ka ah inay ruushka ka caawinayaan inuu dhiso diyaarada droonisa iyo wacdaraha ay ka dhigtay diyaaradii droniska ay Iran siiyeen ruushka sida ay sheegteen ka hor intuuna dagaalka Ukraine dhicin. waa gartay waa yahay marka haddii ay noqoto in la heshiiyo isfaham muxuu Mareykanku soo bandhigi karaa Iran? su-aashaas waa su-aal aada u fiican. in la heshiiyo aada ayay u fog tahay. maxaa saa loo leeyahay? waxa weeye caqliga iyo maskaxiyadda Mareykanka iyo sida uu u hadli doono ayaa waxay keenaysaa xasaasiyad aada u fara badan. Iran ma ogolaanayso Mareykanka inuu ka hadlo wax aan asaga qusayn. haddii uu ka hadlo ururka Xamaas kama hoos qaadayso, hadduu ka hadlo Xuutiyiinta kama hoos qaadayso, hadduu Xisbullah kala hadlo kama hoos qaadayso. dhowr goor hore ayay dhacday, wax cusub maaha. haddii uu gantaaladeeda ka hadlo ma ka hoos qaadayso. haddii uu ka hadlo barnaamijkeeda nuclearka waxaa loo sheegayaa in barnaamijka nuclearka uu nabad yahay, wax kale oo dheeraada oo laga yeelay ma jirto. heshiiskiina adaa ka baxay, inaa heshiiskaas lagu soo noqdana ma ogolin. fursad weyn ayaa noo abuuran annaga aan howlaheena ku wadano. waxaa kaloo loo sheegayaa sida ay khabiirada oo darasayaan oo uu ka mid yahay Saciid Muraadi oo professorka ah jaamacadda Tehran. yaan la hadalnaa, yaa la isku halayn karaa. waxa weeye shalay madaxweynihii shirka nala galay ee nala saxiixday adaa ka noqday. Mareykanka yaa u gorgortami kara. waxa weeye yaa heshiis lala geli karaa. meeqa heshiis ayaa ka noqoteen? cid idin aaminaysa ma jirto. waxa weeye marka